Assalaamu calaykum. Waxaan idiin soo gudbinayaa mid ka mid ah xasuusihii uu qoray Faarax Xiiran oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamadii nabad sugidda Soomaaliya ee loo aqoon jiray NSS. Waana qaybtii koowaad. Sargaalkan oo lagu magacaabo Faarax Xiiran waxa uu yiri anigoo wata magac iyo meeqaam qalaad magac iyo aqoonsi dal kale ayaan markii saddexaad gaaray dalka Itoobiya kadib duulimaad 8 saacadood ahaa sanadkii 1970kii. waxaa aqalkiisa nagu casumay wasiirkii garsoorka ee dalkaasi Itoobiya xilligaas. dhowr daqiiqo kadib waxaa soo gashay gabar gugii 25aad aan ku qiyaasay oo qori iyo qarab ciidan ku joogta. intayna salaanta ayay qoriga aabaheed dhabta u saartay kadibna aqalkii hore u gashay. waxaa igala shaki igu badnaa oo ahaa armaal uu aqoonsaday inaad tahay Soomaali, kaaga sii darana sargaal ka tirsan ciidamadii nabad sugidda ee qaranka Soomaaliya oo qorshaha aan ku joogo Addis Ababa dejinteeda iyo diyaarintiisa iska lahaa. waxaan hubaa haddii in yar la itumo in qoorta la hor dhigi lahaa, waanse u soo bareeray oo baryahaas waxaa igu weynaa qaran Soomaaliyeed qiimo gaarana ii lahaa. intuu dhoola cadeeyay ayuu yidhi gabadhaydan iyo qaar kaloo asaageed ah waxay dalkan u qabteen waxaysan jiilkeenu qaban waayeen, waxaana lagu dhigi doonaa baalasha taariikhda. wax yar kadib ayay inantii oo doorkan muujisa dumarnimadeeda soo dhigta cabitaan iyo haruubyadii lagu fuudi lahaa. hadal dheer kadib oo u badnaa haaraanka iyo hagaardaamooyinka loo maleegayo dalkan u dhashay una dhaartay inaan u dhinto ayuu si xushmad ka muuqata uga codsaday gabadhiisii inay gaarigooda laadada ay ugu qaado ina geyso funduqaan deganaa iyo haddaan doonayo inaan xoogaa meermeero magaalada. hadal dheer oo u badnaa haasaawo iyo hadal malagii galay ayaan weydiiyey halka ay heeganka kaga jirtay gabadhu. waxay iigu jawaabtay jigjiga iyo dhulka ku heeran ayaan xilkeeda difaac hormuudkeeda ku jiraa. haatanna fasax gaaban ayaan ka imid oo aniga haatan hubkii dhigay. anigoo qarsanaya ciilka iyo carada i buuxisay ayaan idhi ma dagaal ayaad u joogtaa mise difaac keliya? intay qososho ayay tidhi xamar iyo xeebaheeda berbera iyo banka diyaaradaha dagaalka ilaa aan soo taabanno waxaan ku dhaaranay inaan qoriga dhigin. haddaan dhimanana dhasheenna ayaa qaadi doontaa inta laga xaqiijinayo riyada qaranka Itoobiya. intaan garabka gacan gacalbeeleed ah ka saaray ayaan ku iri gabadhii hadal kale intaan ku celiyo sawtii madaxdeena Afrika ku heshiiyeen xadkuu dhigay gumaystuhu dowlad kasta inay ku negaato. intay isoo eegtay ayay tiri dunidu way noo ogoshahay inaan qabiilka Soomaalida ee naga fallaago aan xoog iyo xeeladba ku soo ceshino. waxaan ku iri laakiin sida ay qorayaasha taariikhdu wariyaan dadka Soomaalida ah waa qaar aan la loodin karin oo dagaalka ku daran, naftuna aanay qiimo u lahayn haddii ay wax ay leeyihiin xoog looga qaato. waa qoom darane adiguna gabar qurux badan ayaa tahay yeysan naga kaa dafin, xoog isu ilaali ayaan ugu jawaabay. anigoo ku laray dhoolla cadays been ah ayaan daaqadii gaariga iska furay. intay soo degtay ayaa hore ii sii raacday ilaa aan ka gaarnay kadinkii funduqii aan u hoyan lahaa habeenkaas. muddo gaaban kadib waxaa ii dhammaaday hawshii aanu joogay dalka Itoobiya. anigoo ku joogay magac iyo meeqaam qalaad waxaan ku soo noqday xamar iyo xaruntii dalka. moogan waxaan ahay Faarax Xiiran oo ka soo noqday tababar dhinaca ciidanka ah oo ugu maqnaa dal aan saaxiib nahay. sidaas ayaa loo sheegay saraakiishii hoose iyo shaqaalihii dharaarahaas aan wada joognay. wuxuu igula ballamay taliyihii nabad sugidda ciidanka Soomaaliya ee xilligaas inaan warbixinta aan u sido ku siiyo funduq Jubba. salaadii maqrib markaan ku soo tukaday masjidka Sheekh Cali Suufi ayaa soo eriyay garaasadii gaadiidka dowladda ahaa oo si uun ii soo gashay. anigoo isle waad ka daahday ayay jidka Colombia iyo wadada Kismaayo halkay iskaga darsamaan iiga banjartay. kadibna intaan dhinac jidka uga saaray ayaan soo lugeeyay anigoo neef tuuraya ayaan soo galay Jubba oo aad moodo habeenkaas inay ciid la dambaabayo tahay. gabar shaqaalaha ka mid ah ayaan weydiiyey xaalkaas jira caawa. hebel ayaa aroosaya ayay ugu jawaabtay caawa waa wiil ina wasiir ah. dhowr wasiir oo guduhu ka mid yahay ayay indhahaygu qabteen. xoogaa kadib ayuu soo galay taliyihii ciidanka nabad sugidda asagoo si u degdegsan ayaan dhinac shaah ku wada cabnay. warkii markaan u dhiibay
tii ugu cusleed ayuu furihii gaariga ka qaatay wadihiisii gaariga keligiisna sii kaxaystay. waabarka xafiiska isugu keenkeen ayuu hadal iisii raaciyey. hagaag jaalle ayaan ugu sii daray. intaasi ayay ku eg tahay qaybtii koowaad ee xusuustii Faarax Xiirane oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. qaybta kale intaan u gudbayno waa Maxamed Muuse Qaalo idinkaga tegaya sidaas iyo amaano Allah.